gaara oo ku saabsan quraanka kariimka ah ayaan insha Allah ku qaadan doonaa hadii Ilaahay ka dhigo bishan sida Ilaahay quraanka ku sheegay tabaaraka wa taala waxa Ilaahay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim shahru ramadaan alladhi unzila fihi alqur'aanu hudan lin-naasi wa bayyinaatin min al-hudaa wal-furqaan wa bishi ramadaan ay Ilaahay subhanahu wa taala quraanka ku soo dejiyay isagoo hanuun iyo hidaayad iyo nuur bawata iyo rahmad الفرقان أهو حقيقة بدل كرسارية القرآن كريم كأهل إلهي أضاري بشر مسودة شيء أي حلقة هنا إن شاء الله يكسب سنة دونا بأننا نحكي الله قرآن محل لحظة كلمامه اسم حيهين مقعد اسم حيهين حو قرآن كهلا محوينا أمرها محوينا قلنا هي إن نقلنا قانون إن القرآن كمارتي عن لفظهان وآخرنا بل أيضا محوها يعني كعب رقادنا أو أجنا أيامات اللوبة هي إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآن كوكوري أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها markaasaynu taawga baxsano oo Ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala quraanka meel u fiirsanin masaaqoob ay maartay yani xiran bay ku qaabilayaan markaas qalbiga ugu furmo insha Allah waxaan isku day doonaa intii aan karno inaan waxa ka yara iftiimino quraanka iyo dulucdiisa iyo xikmadiisa iyo waxyaalaha ku saabsan yahay ugu horeyn xalqadeena koowaad maanta insha Allah waxaynu ku eegi doonaa quraan ama taariif quraan quraan marka la taariifinayo ama marka la qeexayo macnihiisa muxuu yahay quraan waa kelmad carabiya oo min qara'a ayaa ka timi qara'a waa akhriye weeye waxa kale oo qaraa'ay macnaheedu ashayda kamid ah al-jam'u wad-dam yani wax la sugeeyo oo ma tala ururiyana waa la yiraahdaa masdarku qiraa'o noqdaa quraan buu noqdaa xaraf loo geeyo ee la sugeeyo kelmad baa ka soo baxda marka damiga halkaas iyo jamcigu ay ka soo galaya waxa la akhriyaa wax la ururiyo xuruuf la ururiyo baa la akhriyaa oo ma ta akhris xamil karta ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka waxa uu ku yiri aayad quraana tabaaraka wa ta'ala inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu إلهي سبحانه وتعالى ساك ما يعني بلان قاعدين محمد قرآن كل من تيس حفظه في قلبك يعني إنه قلبك أكو حفظه هي مكاسي إن الأخذ لبضبة وتسوي لي كرته لبضبة إلهي كحل قاعد سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام عرب كان دقاتين مك وحي بصعده سي مكاسي يعني ما تقول على شو لكن إلهي بقى ضمان قاعد سبحانه وتعالى إنه كو حفظه أو تدون سوي لي شيء قال آخره هي مكاس أي الله إله مارت يعني قرآن إله هذا وحوي مفعول كذا بما تمستر كيلو يا لغو يعني لغو مقعابي قرآن كريم كلمة قرآن مكاس أصلاً كلمة قراءة كتمات قراءة هي قرآن كو معناه إنه كل ليهين واسكمل حاجة معناها لكن حاجة عالم كما كان نقطة هي مقعب حنتها قرآن كلمة قرآن وحي عالم النقطي أو مقع يعني لا يقانه أي النقطي هذا الكإلهي سبحانه وتعالى ألا سودتشي أي نقانه أي قرآن لما عمات يعني كلمة النقطي أو يعني اللغة way ka baxdo waxa noqotay shay master hol isla yaqaan oo calam ah oo magac yani quraanka ilaahay kalaamkiisa loo yaqaan tabaaraka wa taala waxa lagu magacaabay kitaabka quraanka ah quraan waxa loogu magacaabay baa kala leeyahay wuxuu kulmiyay quraanka waa jamci way urun way wuxuu kulmiyay dhamaan kutubihii hore waxay ka hadlayeen midhaheedu ayaa ku jira aqeedaha haday tahay cibaadaha haday tahay mucaamalaadkii dhaqankii akhlaaqiyadkii adabiyaadkii waxa la wixii kutubihii hore ambiyada oo dhan lagu soo dejiyay ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagoo maanta muujisa ku soo dejiyay kitaabkeena quraanka marka wuxuu jamciyay dhammaan rasaaladii hore dhan saasa quraan lagu magacaabo waa tadnaati macna labada culimada qaar kood soo faa'iideeyeen ama se culumta dhan buu kulmiyay midhaheedii oo ilaahay baa quraanka wuxuu ku yiri tabaaraka wa ta'ala ma farradna fi kitaabi min shay quraanka xukmana dhaafin waxa ilaahay ku cadeeyay subhanahu wa ta'ala laakiin in maanta yani magacaadka hore ee ah in yani kitaabka quraanka ahi oo yani yahay magacaasi ku caan baxay oo ciladaha dambe aanu lahayn ayaa markaasi sawaabku yahay markaan u soo gudubno quraan culimada maati taariifisa ama culimada istilaah aswaa luqadiban ku soo hadalay quraan maxaa la yiraahdaa marka quraan la qeexiyo cilmiyan taariifka cilmiga ah loo yaqaan quraanka muxuu yahay waxa taariifka cilmiga quraanka loo yaqaan waxa culimadu ku soo koobeen marka siyaalo badan taariifaad badan runtii maati yani laga qeexay ka soo ururinaya ee maati yani la qaadanaya ee ugu raajixsan waxa weeye inuu yahay kalaamullaahi al-munazzal ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam المتعبد بتلاوته وكلام الله بيده هذا الإله سبحانه وتعالى هل كان وحكم بحياة وحال يروحي عن هذا الإله حين وهذا الرسول حتى كتيره هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وحيها هذا لكن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الله وحوي وقرآن كنسك القرآن كوي وهذا الله سبحانه وتعالى المنزل مكان إليه هنا وحكم بحياة هذا الإله أنا سود الجنين وإلهي هذا الكيس القرآن كلمة هذا الإله سبحانه وتعالى كلمات كإله وبلانيه سبحانه وتعالى قرآن كإله وحكم شاقي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد 7 أبحر ما نفذت كلمات الله هذه ما يعني قرآن بضها تضبط لقى لها وحلو حق يدك يلا قرن لقى لها ولو قرن لها
كلمات قال ما دمان سبحانه وتعالى ما كلمات كلمه بدنيهين اما كلام كلاه هو بدن يحيى كمنزل كاه نبي محمد لو سو دجي على محمد صلى الله عليه وسلم اين سوته كلا سو دجي كلام الله على محمد انه waxay ka saaraysaa wixii lagu soo dajiyay kutubihii hore iyo nabiyadii hore wixii lagu soo dajiyay quraan lama yiraahdo laakiin waxa lagu soo dajiyay kaliya ayma quraan kala yiraahdo المتعبد بتلاوته waxa weeye macna waa kii xaraftiisa iyo kalimaadkiisa la inagu adoonsaday inaynu akhrino oo markaas yaani aynu cibaadada ku gudanayno kalaamka ilaahay waxaan ahayna lagu tukan karaa midna faatixada iyo kale way lagu tukadaa hadal kale lagu tukan karaa oo salaada dhexdeeda la akhri karaa ma jiro marka ducooyinka maartay yani meelaha gaarka ku saaray laga reebo marka akhriskiisa ayaa cibaada ah oo salaada baa lagu tukanayaa xaraf qofka akhriya 10 ajir buu leeyahay marka saasay u qeexeen cilmiyan marka la qeexayo quraan maxaa la yiraahdaa waa kalaamullaahi المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته marka hadii lagu weydiiyo quraan maxaa la yiraahdaa de quraan ka soo la yiraahdaa ma tii kitaabka soo la yiraahdo kaliya ma wana si cilmi u qeexi kartaa oo marka yaani xafidi kartaa kalaamullaahi hadalka ilaahi ee la soo dajiyay in maxamed lagu soo dajiyay sallallahu alayhi wasallam ee akhriskiisu iyo ma tii yaani talaawadiisu aynu amaata lagu adoonsaday lagu waajibiyay inaynu ku akhrino salaadaheena ku tukano rukn arkaanta kamid islaamka oo noqdo kaas la yiraahdaa quraan kariimka ay markaa قصوى تعريف كيسي حق اللغة هي حق علميا علماء الإسلام أما علماء القرآن ما تي علماء القرآن كيغانا أيكو معنيين لبضع سي أيان مكا كسو كبسانينا قرآن كوحو ليه هي مقعيو مقعي بدنا كلو ليه كلمة منو ليه مقعيد هذه مكاين ماتي يعني كوه رينو مقعيد القرآن كله هي وحكم القرآن سان سوشيال إلهي باكو شيء سبحانه وتعالى إن القرآن إلهي بالقرآن كوحو تبارك وتعالى في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى ياسين والقرآن الحكيم بإله سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد بإله سبحانه وتعالى فكلمة القرآن إلهي باكم مقعابي سبحانه وتعالى مقع القرآن كله هي ومقع عيسى عالم كايه لو يقام وحكم ذا مقعيده وليه هي الكتاب كتاب بكم ذا وإلهي بالقرآن كله سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون حديث ذي النبي إلهي سبحانه وتعالى كتاب قال في القرآن كإلهي وحكم بدري مقع كلامات كتابا للهذا كتاب كاسو شرفتي إني يحسكي إنه بوكتشرو يعني سودة النبي إلهي سبحانه وتعالى فما مقع كم معي القرآن كله إن كتاب للهذا كتاب الله هنا للهذا وحكم معي القرآن كله هي الفرقان فرقان ومقع القرآن كله هي وصل القرآن لو بحي كتاب لو يقانو هي فرقان لو يقانو مقع قاروي تانا إلهي بكم مقع سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وحمات حمان كنسان الله سبحانه وتعالى فرقان كسودة شيء دون كيس محمد marka waa magac kale uu leeyahay quraanku oo furqaan maatay magac u gaar weeye sida quraanka loo yiraahdo ayaa furqaan loo yiraahdo kitabka quraanka waxa kamid ah magacyada quraanka ilaahay ku sheegay subhanahu wa ta'ala ilaahay u bixiyay adh-dhikr dhikr baa la yiraahdaa ilaahay wuxuu leeyahay inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidun annaga soo dejinay ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka dhikri macna quraanka baa loo jeedaa quraanka Allah marka magac u dhigma quraan oo u dhigma furqaan oo u dhigma kitab ayaa dhikri maad kaas weeye ذكرك أنا سودة شيء بإلهي سبحانه وتعالى يعني القرآن كان سودة شيء أنا حفظي بإلهي سبحانه وتعالى إلهنا إلهنا وإلهي سبحانه وتعالى في الصدور وفي الصدور قلوب بنادك إلهي كل إلهي مؤمنين تاهو حفظا أو قرآن كريم كأنا يروح حفظا بالهلية إلهي وحكوا إلهي سبحانه بالصدور هي مات مصاحفتها القرآن مكتوب كابي إلهي كل إلهي سبحانه وتعالى وحكمنا بغير القرآن كله هي التنزيل بإلهي بات يعني كمدها أو تنزيل ومقع كل القرآن كله هي إلهي بحي سبحانه وتعالى قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين تنزيل من حكيم حميد يعني هو سودتشين بإلهي ليه ما سودتشي منزل معنوي كل سودتشي الله رب العالمين كحقيقة كسود قوي ما كان تنزيل لو على لحظة وما قعسوا كل يلقوا دين كره تنزيل كما هي سوى قف يعني كتاب ما هي سوى قرآن كما هي سوى وجد مقعدة سوى مقعدة القرآن إلهي كل شيء وكلا بدنا نوجران وإن شاء الله ما تقف القرآن كآخرها كده حلك روي إلهي ونكم مقعد سبحانه وتعالى ومقعية مكا إلهي بحي سبحانه وتعالى مقعدة وحاصل كن غالبة وكتاب كان كعام بحي قرآن يا كتاب لوضع مقعد وهرية لوضع سكو عام بحي قرآن الكريم يا كتاب الله لوضع يعني مقعد بعد لو يقانا مقعدين كله يعني القرآن كلا قد حلو ذكر علماء ما تحكم مقعابان وحقوريان لكن ذكر عالمك أما ذكر عامك عامها أنا وسمينته لوضع مقعد عام بحي الله يقانا والقرآن الكريم يا كتاب الله كتاب الله سبحانه وتعالى قرآن وحلو بحي مكة ومقعد سوى عام بحي لأنه مطلوب بالألسن ولا بضع مات يعني شيء قرآن كتاجي هاي أي قرآن كي كتاب كي كرت الماميان قرآن معناه هو مقروي وكيل آخري ما يسوي قرآن معناه هو مقروء مركا عرب بضع الجو آخرية وكي عرب كل جو آخرية ما تذكر آخرية بلوتش مركا قرآن ليه كتاب نوح الله مقعابيا لأنه مكتوب مدون بالأقلام المصاحف قلم بالو قرأ أو بعد بالو قرأ
مصاحفته كقري ومكتوب وي مركا كتاب يا قرآن معناه وحوي ومقروء يا مكتوب لبدا ما تي أول يعني مركا كي الآخري كي قرنا ما تي مكتوب كها مصاحفته كقرا مركا مقعيراس أي قرآن كأولي هاي وإلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا ما تكسر نحولي كتابك مركا قرآن كاهي مقعيراس أولي هاي مقع كستو كمدي حكمة وين بكفرديا معنى وين بكفرديا قيب قرآن كلي هبو أيو تلماميا إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا منزل كأه ما يعني إلهي سبحانه وتعالى وكبرنا قاعدين وحفظه وحا أي مكان قرصين يعني آدي لو جف إيديه إن آدي لو آخره إن أي نحن هاي بشان ما دام إلهي أدورت سبحانه وتعالى إن تبيش قرآنك إن آدي القرآن كأخرنا أو أي ما تمكن ولا آخره إنه أي معناها القرآن كلي هاي أي آدي هذا لحنه وقلبي سوتش إذا أنكو آخرنا إلهي سبحانه وتعالى ما يعني القرآن كان يقبل على أو ما يعني ندرسين إياه إن آياتك إلهي أيام فعيان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إلهي عليه سبحانه وتعالى يعني القرآن وحا وأن من نفع إليه وحتر إليه وحكر هذوبية وقلبي سمعت يعني ودريمية لمن كان له قلب يعني قلب حاضر قفك قلبي حاضر له قلبي سمك سوي هاي مد شوكته أو قرآن كلا نور وقرآن كان واخره أيه كلمة هي جملة هي آية ولا صعدة ومعناها لما ذي يعني قصة لما تيجي بلا ما يسيء معناها آية ظهر كله هي ما كله فهمية لمن كان له قلب يعني قلبي حاضر له وقلبي سبحانه مقنين oo meekala ka shaqeynaa meekala ka shireenin isagoo quraanka akhriya way dhacdaa inta badan oo qalbigeena waa ku dhacdaa in shaydaanku ku saaraya siyaasada uu ku saarayo ayuu ku saaraya marka quraanka ku jirta ku saaraya marka saadigo jisda ka saaray oo jiskaas waxa leeyahay wuxuu ka hadlaya ama ka danaysan baa raad ku reebin waxa qalbigii ma joogin marka ilaahay subhanahu wa ta'ala tilmaamay liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid oo kii dhageysanayo marka yani dhagaha sood maatay yani ritay amba qalbiga ma soo jeediyay iyo dhagaha soo jeediyay isaga oo goob joog ah oo xaadirna marka hadii aad wax akhriyeysana waa qalbi xaadir ku akhrida oo quraanka ma taata dabartada macaaniisa oo firsata hadii muxuu ahaa yani aad dhageysanaysan soo kale waa in adigoo maat yani xaadir aad dhageysataa marka quraanka kariimka oo insha Allah aynu isku day doono internetka ku jirno in aynu waxoogaa ka fahno wala ma wada fahmi karno kitaabullahi aad iyo aad balaaran yahay laakiin waxa duruusan uga jeednaa daraasaadkan ama ta'amulaadkan ama fiiradan gaarka ah aynu maanta quraanka siinayno inaan meelaha qaar kood ka tilmaano oo maartii yani qofka la socdo barnaamijkan maartii yani mutaabacaya insha Allah ka faa'iido doono in quraanka fikrad caam ka qaato amba maartii yani aragti caam ka qaato aqoon guud u yeesho quraanku wuxuu yahay magacyada uu leeyahay tilmaamaha gaarka uu leeyahay waxyaalaha mawduuc ka hadlayo sida maartii qisaska quraanku leeyahay tusaalayaasha quraanku leeyahay yani iyo nuxurka ay leeyihiin maartii ujeedada quraanku la soo dejiyay insha Allah muqtadafad caynkaas oo inuu uga jeedno in qalbiga ku soo jeedino oo aynu uga dan leenahay inaynu dadka maartii yani quraanka ay jeclaadaan oo quraanku aanu naga noqon akhris kaliya iyo maruur aynu dul marro kaliya aanu naga noqonay ayna marka macnayaashiisa u fiirsano iyo maartan noloshiisa ugu saabsan yahay teena adduunyo teena aakhirada uga hadlayo macaamiladeena iyo cibaadada uga hadlayo yani wax kasta inuu baahanaysa quraanku waa ilaahay quraanku sheegay subhanahu wa ta'ala ma faradna fi kitaab min shay ilaahay quraanku yiri quraanka xukmana dhaf ilaahay subhanahu wa ta'ala marka ilaahay wax baad ku sheegay sida ilaahay wax baad ugu sheegay subhanahu wa ta'ala halkee laga helay wax lagu sheegay faraha badan sida looga fahmay wax lagu sheegay faraha badan sida looga faa'iideysanayna quraanka insha Allah daraasaadkeena aynu kooban qaadanayna taas insha Allah ku saabsan hadii ilaahay ka dhigo درسنا ما شاء الله ونحن سنسوي أوريدون هذه الهاي لحظة تعريف كاس يعني نقول إنه كبحنا القرآن حق اللغة هي حق مارت يعني علم الاصطلاحي هي مقعيد القرآن كله هي مقع اللي واحد ودارين هي أي ندرس كأنه هراء إن شاء الله ماتا كسوق بجبيننا هذه أدل مع سنتين إن شاء الله دروس دماء أي نخلص عندنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.